كالصدحات إلهي تبارك وتعالى وهلاقيين لسويدين إن هلاقيس والروح كقوسط إلهي نحريستيس انت بدني وحي كل عدا ضدك الدنبية بدني الذنوب تقسطه شيطانكم مركو ور الدنبيكو كوغو ردايا مركو كوغو هبسدو الدنبيكو كوغليو dhinac kale haddana ka soo galaya wuxuu ku leeyahay ilaahay ku dambi dhaafi maayo khalaas way ku dhamaatay haduuba kugu qanciyo ilaahay ku dambi dhaafi maayo way ku dhamaatay oo ilaahay naxariistiisa ka quusato bas wax ruux ilaahay naxariistiisa ka quustay waa ruuxay u dhamaatay sidaas daraadeed baa rabbi tabaaraka wa tacaala quraanka kariimka wuxuu igu nugu leeyahay addoommadaydii xumaanta iyo dambiyada sameeyayow naftooda ku xadgudbayow naxariista alle ha ka quusanina la taqnatu min rahmatillah maxaa yeelay inna allaha yaghfiru dhunuba jamii'a ilaahay dambiyada waa dhaafaa dhammaantood waa dhaafaa dambi uusan ilaahay dhaafin ma jiro shirki baa u weyn dambi la galo hadduu addoonku ka soo noqdo ilaahay waa dhaafaa saas daraadeed baa aayadda ka dambaysa alla wuxuu yidhi wa aniibuu ilaa rabbikum wa aslimuu lah soo noqo irridu waa kuu furanta allana towbadaada waa ku farxaya waana ku saamaxaya ha islihin haddaad khaladkii gashay khalad kale ha sii gelinoo ilaahay kuu dambi dhaafi maayo nabiyullaahi yacquub calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markuu wiilashiisa la hadlahayay fii suurati yuusuf alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala inooga sheegay nabiyullaahi yacquub inuu wiilashiisa ku yidhi kactaga oo yuusuf soo raadiya fataxasasuu min yuusufa yuusuf soo gooba walaa tay'asuu min rawxi illaah ilaahay naxariistiisana ha ka quusanina innahu laa yay'asu min rawxi illaahi ila alqawmu alkaafiruun ilaahay naxariistiisa waxaa ka quusta oo keliya oon waxba ku lahayn dad gaala ah inta aadan gaalnimo gaadhin naxariista ilaahay tabaaraka wa tacaala waxbaad ku leedahay maxaa yeelay naxariista rabbi waa ka guda weyntahay cadaabkiisa cadhadiisana rabbi tabaaraka wa tacaala waxaa ka guda weyn ridihiisa iyo naxariistiisa ka guda weyn cid walbay waasic u taho rabbi ugu talagalay tabaaraka wa tacaala sidaa daraaddeed soo noqo nabiyullaahi ibraahimna calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam markay malaa'igtu ugu bishaaraysay wiilka isagoo islaantiisuna madhalaysta awday tahay asaguna da'ba yahay ayaa wiil loogu bishaareeyey markaasuu wuxuu yidhi keef say ku imaan kartaa waxay ku dhaheen ibraahiimow ma naxariista rabbi baad ka quusatay markaasaa nabi ibraahim wuxuu yidhi man yaqnatu min raxmati rabbihi ila addaalluun oo yaa naxariista rabbi ka quusta dad lunsan mooye ma cid kalea naxariista rabbi ka quusata mahma kaana alamru quusad ma jiro wax kastoo doonayso mataalibtaada ka mid ah jidkeeda mar ilaahayna kaasho tala saaro ku kalsoonow laakiin marnaba hayslihin waxani ma suuroobi karo dunuub haddaad gasho si kasta ay tahayna soo noqo ilaahay u toobadkeen tabaaraka wa tacaala waa arrin halisteeda leh inaad heerkaa gaadhood naxariista rabbi ka quusato waxaa dhanka kale iyadana ka soo horjeeda in aad acmaashaada iyo daacadaada iyo khayrkaaga intaad ku kadsoonto aad ilaahay makrigiisa aamin ka noqoto iyadana waa dhanka kale innahu allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay makriga alle tabaaraka wa tacaala waxaa aamin ka noqdo keliya dad khasaaray marka labada khad midna ha u dhicin dhanka inaad naxariista ka quusatana ha aadin dhanka inaad ilaahay makrigiisa iyo cadaabkiisa isdhigatood aamin ka noqotana ha aadin khadka dhexdhexaadkaa mar waa inaad cabsi qabto dadaalna qabto rajana qabto rajo qab cabsina qab khadkaasaa la rabaa in lagu socdo saddexdaa arrimood marka waxaa la doonayaa inaynu iska ilaalinno sifaadka rabbiya khasaa'istiisa ha ku qabsanin hana isku dayin inaad sheegato allah amarkiisa iyo sharcigiisa shakiyuusan kaa gelin yaqiini oo siday tahay u rumee si kasta haddaad khalad iyo dunuub u leedahay ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin ee dadaal la imo safxa cusub furo ilaahayna u toobadkeen tabaaraka wa tacaala
صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.